shinnida waa xayawaan qatartiisa leh oo dadka waxyeelayso mararka qaar iyadoo taasi jirto haddana waxaa jiro dad u dhaqda sida xoolaha oo kale Aqiid Maxamuud Biyow waa aabba haysta 6 caruur ah 10 sano oo kamid ah noloshiisa waxa uu ku soo qaatay ka shaqaynta shinnida taasi oo sababtay inuu saaxiib dhow la noqdo xayawaanka shinnida Aqiid oo aan kula kulmay magaalada Beledweyne ayaa waxa aan weydiiyay sida uu suura gashay inuu saaxiib dhow la noqdo shinnida shaqadayda waa shinnida aan ka shaqaysto dadkana macnaha wax shaqada aan qabanayo iyadoo halis ay tahay oo bilaadankan macnaha ay wada cabsadaan ay aad uga cararaan iyada si aad aan u jeclaa waatan hadda ay sankeyga iyo xabadkeyga waxaygana iskaga degantahay waatan macnaha gacanta iskaga haaso waxaaba imalaysa waxaaba ila tahay baani inay gabar yar oo xurcaan aka fadhiisay dadkana shinniye maleynoohan marka aad Ilaahay ku waxaan farsamo oo Ilaahay bari waaye nin kasta Ilaahay waxa uu bari oo u fududeeyay anigana Ilaahay baa tan ii fududeeyay alxamdulillah shukri Ilaahay baa ku mahadsan wax farsamo ama sixir laakiin dadka markay kugu arkaan aba waxaan sixir u adeegsatay iyo barnaamij noocaas ay keenaan nin kastaba shaqadiisa Ilaahay baa u fududeeyay Ilaahay baana u kaalmeeyo waana waxa uu bartay sidoo kale Aqiid waxa uu tilmaamay inay sajireen sabab dalka loogu tahriibo maadaama dalkeen uu yahay hodan ama barwaaqo waxaan dhihi lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ummadda Islaamka ninkii tahriibo badda isku dil lahay iyo ninkii macnaha meel cidlo oo banaa cidlo waraabo ku dil lahay waalidkiisa ka tagi lahay waxaan dhihi lahaa nin kastaba shaqo wadanka ay dhooban tahay shinnida haduu ilaa malabkan laga soo saaro daawo kasto hadda oo taala farmashiyo shinnida u jeedo oo qatarta halis waa leeyahay malabkeeda ayaa ku jiro daawo kasto la cunaa aan noqoto sharaabo aan noqoto kaniniyaal wax kasta iyada waxay sameeysaa ku jiro ma aragtan wili qof macnaha oo bilaadan ama islaami ama gaal wuxuu kaana ahado oo wili isbitaal jiifo shinnid u jiifo la dhahay wili ma aragtan jawaabtu waa may ugu dambeyn waxa uu bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in aan la dhibaateen ama la dilin shinnida oo uu sheegay inay leedahay intifaac fara badan waxa la dilaayo kanaacada iyo baranbarada iyo waxyaalahaas waxba lagu dheefayno masqulaha ku jiro iyo waxyaalaha la baabiyo laakiin waxa dhilahay dadweynaha Soomaaliyeed lagu dadaalo shinnida iyo xoolaha iyo beeraha iyo islaamnimada iyo salaada Abdi Ahmed Hussein telefishinka caalamiga on cable Beledweyne adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida